بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالين الدينية واهي markaan waxaan gelaynaa qaybtii shanaad qaybtii saddexaad ee su'aalaha waa su'aalo diiniya wala ka faa'iideyso waxay ahaatay kana soo jawaab su'aasha shanaad waa tana wuxuu ku leeyahay sheeg magaca boqor najaash waa boqorkii markii ay muslimiintu arda xabash u hijroodeen boqorka ku soo dhaweeyay waaye arda xabash ka talay xilligaas muslimiintu Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu uu gaaminay boqorkii soo dhaweeyay waaye hijradii labaad marka sheeg boqorkaas magaciisa waxaan jawaabahan waa soo gelinaa insha Allah jawaabahan waa soo gelinaa dad ka soo jawaabo weysi wuxuu ku leeyahay sheeg saddexdii saxaabi ee mubaarisidii koobaad soo baxay dagaalkii Badr saddexdii saxaabi nabigu yiri hebelka nabiga qaraabadiisa ahaayeen sallallahu alayhi wasallam sheeg magacyadooda wuxuu ku leeyahay su'aasha kale sheeg magaca ummuna Caaisha hooyadeed radiyallahu anha oo ummahatul mu'miniin kamida Caaisha bin Abubakar bin Siddiq Abubakar bin Quhaafa adalay saxaabiga jiliilka ahay oo 700,000 oo xisaab la'aan jannada ku galay hogaaminay saxaabigaas dhalay waa nin waxay ahaday man sabar rashara ilaahi rafiiqiisana la soo sameeyay insha Allah Allah ma gaarsiiyo su'aasha kale ku leeyahay sheeg magaca Ali ibn Abi Talib hooyadiis Ali ibn Talib asagana وعشرة مبشرين بالجنة كمذا أو كمذا حيث أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم النبي من أذير كيسة ويسمى إذا القربة سؤال كل هذا الشيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يسمى إذا نيم عن يسمى إذا الشيك اللي يقول مقعد سؤال كل هذا الشيك مسجر oo aqaaran ka mid ereyga diraariya okay su'aasha koowaad waxay ku leedahay sheeg imisa jeer oo quraanka lagu sheegay ereyga adduunya sheeg imisa jeer quraanka lagu sheegay ereyga al-aakhirah sheeg imisa jeer ayaa quraanka lagu sheegay ereyga adduunya imisa jeer quraanka lagu sheegay waa labada su'aal ugu dambeeyay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ma azintihiin naga sitaan jawaabahan bixinaynaa war soo galeynaa inta oo kala socodid insha Allah